qof kastoo idinka mid ah hadduu yahay heer federaal, hadduu yahay heer dowlad goboleed iyo hadduu yahay khilaafaad, xuquuq ayaa idin saaran iyo waajibaad. TOR ayaa leedihiin, job description ayaa leedihiin oo caddaynaya howlaha sida aad u qabanaysaan. howlaha doorashada ee la qabanayana idinka ayaa ka mas-uul ah. dadka way isku qaldaan guddiga xafiiskayga ee la taliyaha ah aan sameeyey iyo idinka. aniga mar kastoo gacantayda idinma soo gaarto, dowlad goboleedyada gacantooda idinma soo gaarto. waa inaan helnaa dad mar kasta idin fududeeyo wax kastoo aad u baahan tihiin. hadday wax soo kordhaan waa xiriir isku xiro waayo, laakiin hawsha guddiyada doorashooyinka ayaa mas-uulka ah. hortaas inaad ogaataan aan rabaa. cid idinku faragelinaysa ma jirto, xor ayaa u tihiin. waxaana laydinka sugayaa inaad deliver garaysaan ama aad fulisaan wixii lagu heshiiyey ay madasha wadatashiga qaranku ay ku heshiiyeen oo ah in dalkan ay ka dhacdo doorasho dadban. waxaan jeclahay maanta inaad saxiixdaan oo akhrinaysiin in qof kasta waajib uu ka saaran yahay inuusan waxyaabaha qaarkood faraha la gelin oo ka xaaraanta ah. waa garan kartaan inaan qof la nicin, inaan musharax la xigsan, in aan koox lala jirin. hawsha idin hortaalla keliya waa dhexdhexaadnimo iyo cadaalad iyo hufnaan inay doorashadan ku dhacdo ayaa waajib idin saaran ah. haddii qof idinka mid ah uu dan ka dhex raadiyo meelahaas, waxay keenaysaa burbur, waxay keenaysaa khilaaf, waxay keenaysaa isnacayb. annaga oo ah guddiga madasha dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaarahana waxaa waajib naga saaran qofkii farta lagu fiiqo, cadeymo lagu helo, in wixii waajib ah laga qaado. marka waxaa idinka codsanayaa mar koowaad, mar labaad iyo mar saddexaad si ilaahay idinku og yahay inaad u gudataan hawshan. anika ra-iisul wasaare ahaan musharax miihi, waa idiin sheegayaa. dan gaar ah kama lihi, ujeeddo kama lihi. cali mawti, faarax mawti, jaamacna mawti. hortiinaan ka caddaynayaa halka wax oo keliya oo aan wato waa inay doorashada ku dhacdaa si cadaalad ah oo hufnaan ah. waxaan u malaynayaa, aan rajaynayaa dhammaan guddiyadii waa ku dhantiin halkan hadday ahaan lahayd Somaliland, Banaadiriga, Puntland, Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle, South West iyo waa ku dhantiin Soomaal insha Allah. marka cadaalada laydinka rabaa. wixii tababar ah guddiga farsamayaqaanada ayaa diyaar idinkula ah. wixii caqabada ah iyaga u sheegi kartaan. bini aadanka ma dhamo, ilaah ayaa dhan subxaanahu watacaala. wixii idinka maqan, wixii aad tabaysaan, guddiga farsamayaqaanada diyaar idinkula yihiin inay idinla xalliyaan. hadday wax hore jiraan iyo hadday wax cusub oo halkan ka dhashay jiraan, annagana diyaar ayaan u nahay inaan idin fududeyno sida ugu dhaqsiyaha badan uguna wanaagsan. waxaan ku celcelinayaa hufnaanta waan lama huraan. shacabka Soomaaliyeed maanta idinka ayuu idin soo eegayaa. annaga waa naga soo dhammaatay, kubaddii dhinaciinna ayay taallaa. waa is dooranaysiin, maamul ayaa samaysanaysiin. annaga waa idiin fududaynaynaa keliya. aniga ka ra-iisul wasaare ahaan wax dan ah dhexdiina kama lihi. keliya waxaan rabaa qofka idinkugu kartida badan, qofka idinkugu wanaagsan, qofka idinkugu iimaanka badan, qofka idinkuga cadaalad falid badan. isma taqaanaan, laakiin labada maalin ugu horeysa tababarka isku dhex baran doontaan. gudihiisa ayaad isku baranaysaan inaad is aragtaan, wada hadashaan, aad tiraahdiin yaa hoggaanka u dhiibannaa. guddoomiye ku-xigeen, rag khubraha ayaa halkan jooga oo howlaha intooda badan dukumentiyada wixii dhan ka soo shaqeeyey, oo u horeeyaan dadka adviserada ah ee farsamayaqaanada ah, oo ugu horeeyo abukaate Amar Dhagey oo expert ah kana soo shaqeeyey doorashadii 2016 oo dadban, oo haddana maanta aan midaan ku shaqeynaynaa la mid ah, keliya wax yar kaga duwan tahay. waxaan rabaa idinkana inaan hadda maanta idiin caddeeyo, shacabka Soomaaliyeed daawanaya inaan u caddeeyo, siyaasiyiinta aan u caddeeyo, qof kastoo danaynayo Soomaaliya doorashadeedana aan u caddeeyo. September 17 agreementigeeda iyo 27 May waa lama taabtaan. aas-aaska
waa labadii magaalo ee maamul goboleed kasta uu soo gudbiyey insha allah sideedii ku dhacaysa waxa suuqa laga sheegayo waxba kama jiraan labada magaalo haddii ahaan lahayd South West Baydhabo Barawe ka dhacaysa Hirshabelle haddii ahaan lahayd Jowhar iyo Beledweyne ka dhacaysa Puntland haddii ahaan lahayd Boosaaso iyo Garowe ka dhacaysa Galmudug haddii ahaan lahayd Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb Jubbaland waa Kismaayo iyo Garbaharey ergada waa 101 halna laguma daraayo halna lagama dhibayo hadduu Allah subxaanahu wa tacaala idmo marka qalbigiina u sheega idinka iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan la wareejinaya horteyda yaalan gadaasheeda ma yaalan saa ula socda shantii maamul goboleed iyo gobolka Banaadir iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha waa awoodnay in annaga intaan shirno aan dhahno dadkeena aan soo saarano wax noo wanaagsan aan keensano xildhibaanadana anfacayo aan isku tolno laakiin ma soconayso waxa idinka gudiyadiina ah leedin dalbaday waa in aad cadaalad wax ku keentaan marka magaca aad meeshaas ka samaysan kartaan oo Ilaahay hortiisa ka heli kartaan waa cadaalad oo aad heshaan oo aad fashaan oo aad ku dhaqantaan alla kaliya ayaa idin la xisaabtamayo xaqiiqda waxa looshina ku jira aniga ma garan karin laakiin idinka iyo qofka si Allahiisa ayay dhaxtaala Soomaa marka idinka idin taala ogaada dalkan 30 sano ayuu ku jiray dib iyo rafaad waxa uu dibka uga bixi laayay waa qabiilka waxa uu dibka uga bixi laayay waa eexda waxa uu dibka uga bixi laayay waa lacagta yar ama corruption ka ah oo qofka uu raadinayo wayna dhamaataa meel ma gaarto waxa harayo waa sharaftaada oo adiga Ilaahay idinka dhaxayso ani kullaytaba dhaxdan soo xirtay inaan musharax noqon haddaan musharax noqdo waxaan u diidaa idin sheegaya rootiga inaan idin qaybinayo haddaan musharax noqdo waxaan ka dhex raadinaya Soomaa haddaan rootigaas wax ka dhex raadiyo ama interestkaas aan wax ka dhex raadiyana waa fil garoobaya saadarteed ama fursadaha oo tahiin aan haysto ayaa haddana u tanaasulo dalkan idinkan waxa la idinka rabaa inaad ummadda uga faa'iideysaan u tanaasulo ummaddiina waxaan macno lahayn aan meel lagu gaarayn wallahi meel lagu gaarayn ha ka dhex raadin magacna Ilaahay idin siinayo kii gafana hadda masiibada ku dhacayso taa ula socdo hor uma soconayo marka waa idin soo duceynayaa hadalka intiisa badan waa dhahay san ku heshiinan waa daahfurnaanta doorashada iyo cadaalad samaynta dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed qabiilku raba ha noqdo qofku raba ha noqdo shakhsigu raba ha noqdo maamul goboleedyada iyo aniga dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan isugu soo noqonayno markasto idinkan waa idin sheegaya shacabkan waa u sheegaya ma ahan inaan sharciga ama wax bedelayno tuhna iska imaanayo marka la kala maqnaado aragteen waxba ka dhex dhalanaya haddaan isku imaan oo wixii la nadiifin oo laga hadlin oo face to face loo wada fariisan tuhunka markasta ma baxayo marka waxa idin sheegaya hala yaabina markaan isku soo noqono 2 week kadib 3 week kadib aan Garowe ku kulanno ama Xamar ku kulanno ama Baydhabo ku kulanno meesha rabta ahaato waa refreshment aan isku sameynayna wixii soo kordhay caqabadaha idin qabsanayo example magaala caqabada idin ka qabsanayo doorashadii ayaa macquul noqonaysa ama stack ayaa dhacay oo noo soo sheegaysiin sida ugu dhaqsiyaha badan maamul goboleedkaas u sheegaysaan waa isku imaanaynaa go'aanka masiiriga oo saxda markaas ka qaadanaynaa wixii idin dhibo diyaar aan idin kulanahay saas ayaa marka waxay keenaysaa markasto inaan tashano hadda daraad markii halkan la imaanayay dadku isweydiiyeen maxaa la soo doonay talo magaalooyinka la yareynaya oo hal laga dhigaya maya 101 la yareynaya maya waxaas wax ka fiican soo soo bixin shalay haweenkii aan ka hadalnay maaliyadii aan ka hadalnay ya wasaaradda maaliyadda iyo maaliyadda la siinayo hay'adahan deeq bixiyaasha wala saaxiibadana ay nasiinayaan sidii ay aan u maareyn lahayn aan ka wada hadalnay sidii aan meeshii Soomaaliya security-ga waxa dhan security-ga ka muhiimsan meel aan security aan kuma shaqayn kartiin waxa soo dhan aan ka hadalnay jadwalkii ka soo baxay ya inkastoo aan jeclaa 10 Oktoobar gaarsiin ka hor inuu iga dhamaado oo aan meeshan ka nasto diyaaran u ahay maadaama aan dan ka lahayn hore idinku sheegay idinkana ku dadaala
sidii aad ku soo gaabin kartaan oo ugu macquulsan ku dadaala marka la tashiyadaas hala yaabina mar kastoo aan isku imaanno shakiyo idin gelin waajibna saaran waayo wax oo nidaam ah oo aan wax ka bedelayna ma jirto waana kalsooni dhiska sababtoo ah kalsoonidii way yaraatay soo maaha dhibaa dhacay isfaham daraa dhacday waa inaan markasta isku imaanna kalsoonida la dhisaa waxaan idinkula dardaarmayaa inaad ka fogaataan saan mar koowaad iyo mar labaad hore idinkugu soo celiyey musuq maasuqa eexda iyo laaluushka sanadkan waxaan jeclahay insha allah inay tayo wanaagsanaato sanadooyinkii hore marka waxaa idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu tababarkana waa noo furan yahay